halkani waa caasimadda Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa halkan socda gabadhan oo lagu magacaabo Anita. Waa muuqaal qarsoodi ah oo laga duubayo si xatooyo ah. Anita waxay shaqadeedu tahay ka ganacsiga carruurta iyo iibgeynta. Waxay u socotaa suuq aan ka fogeyn meesha ay joogto, kaas oo caan ku ah iibinta carruurta yaryar ee da'doodu ay ka hooseyso 5 sano. Wadadan waxay ka mid tahay kuwa mashquulka badan ee xaafadaha Kenya. Waxaa aroor kasta dhinac fadhiya haween carruur sita, kuwaasi oo sheegaya inay yihiin homeless ama aysan haysan guri ay degaan. Laakiin sida xaqiiqda ah, halkan waxay ka mid tahay goobaha ay ku kulmaan dadka ka ganacsada carruurta yaryar. Gabar wariye ah oo ka socotay BBC qaybta baaritaanada iyo dabagalka ayaa halkan timid si ay uga soo waranto xogta dhabta ah ee suuqan carruurta la isku dhaafsado. Waatan iyadoo oo daba ordaysa Anita, waxna ay duubaysaa kaamarad qarsoodi ah, iyadoo iska dhigi doonta inay doonayso inay iibsato cayaal yar. Wada sheekaysi ayaa dhex maraya gabadha wariyaha ah oo tilmaam ku socotay iyo Anita oo wadata ilma ay suuq geynayso. Nuxurku waxa uu yahay inay isku waafaqeen qiimaha carruurta yar lagu iibiyo. Waxaana Anita ay balamisay gabadhani wariyaha ah subaxa xiga 5 aroornimo in ay halkani iskugu yimaadaan, iyaduna ay soo qaadi doonto ilmaha beecoodu u dhacay. Kahor intaan la gaarin ayaa la weydiiyey sida ay ku soo qabatay carruurta yar. Waxaana ay tiri, haweeney aan malaynayo inay ku cusub tahay magaaladan ayaan ku arkay wadada iyada oo socota, ilmahana ay ka dambeeyaan. Waxay igula muuqatay qof aan caadi ahayn, laakiin sidaasi darteed waxay ii noqotay fursad. Inkastoo Kenya aysan ugu horeyn wadan carruurta laga ganacsado, haddana Kenya waxay noqonaysaa wadanka ugu horeeya ee geeska Afrika iyo guud ahaan Afrikaba xagga xatooyada ilmaha iyo iibgeyntooda. Waxaa sidoo kale baaritaanada BBC-da lagu ogaaday ninkan oo ahaa dhakhtar ka shaqeeya cisbitaalka Mama Lucy ee caasimadda Nairobi. Ninkani waxa uu gudaha cisbitaalka ku keydiyaa ilmaha iibsugayaasha ah ee uu ka ganacsado, waxaana uu ku iibiyaa lacag 50,000 oo shilinka Kenyaanka ah oo u dhiganta $300 haddii ay haween tahay, halka ragga uu ku iibiyo $500. Laakiin markan waxa uu yimid rag ka socda BBC oo matalaya inay doonayaan carruur iib ah. Waxa ayna u sheegeen lacago kumanaan ah oo uusan weligii ku hamin. Raggani waxay xabadka ku sitaan kaamarooyin qarsoodi ah oo duubaya wax kasta oo meeshaasi ka dhaca, iyo wada sheekaysiga dhex maraya ninkan. Ugu dambeyn waxay ka iibsadeen cayaalkii yaraa oo ay ku wareejiyeen dowladda Kenya. Waxaa sidoo kale la soo xiray ninkan iyo gabadhii sidatay magaca Anita oo labadoodu ahaa tuugada carruurta xada isla markaana ka ganacsada. Barnaamijkani oo ka baxay BBC-da ayaa lagu soo bandhigay wajiyadooda iyo cadeymo muujinaya iyagii oo ku guda jira shaqadooda ah iibgeynta carruurta. Wadankan Kenya, ilmaha yar waxay ka joogaan qiimo la eg adeega guriga oo kale. Waxa lagu kala iibsadaa $300. Waxaase la yaab leh in si public ah wadooyinka loogu iibiyo. Soomaaliya, barnaamijkan ka ganacsiga carruurta ma jiro astaan muujinaysa inuu soo gaaray. Hase ahaatee waxaa dhowr jeer la arkay carruur waalidkood laga xaday iyo ilmo la waayay halka ay jaan iyo cirib dhigeen. Waxaa u dambeeyay gabadh warbaahinta laga sii daayay toddobaadkii tegay oo mar qura aragtay iyadoo dad caddaan ah oo midiyo sita ay dul taagan yihiin. Haddaba ma jirtaa in Soomaaliya laga ganacsado carruurta? Aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee.